gabadhii al-shabaab ay soo sidaayeen ان aad baan ugu farxay maxaan ka baranay cashara gabadhii waa muslimta hore jaraa'idka caalamka oo dhan waxa haysta gabadha magaceeda jaraa'idka magaca waxa haysta al-shabaab jaraa'idka waxa ku qafaashay waxa haysata dhaqanka xijaabka iyo diraca Soomaaliyeed oo ay qabto yaani marada hadii ay qabto ee Soomaaliyeed ayaa laga faaloonaya dalkii ay joogtay baa laga faaloonaya gabadhu inay xornimo ku noolayd baa laga faaloonaya oo ay dadka iska dhex soconaysay quraanka ay akhrisanaysay dugsi quraan ay gashay wax badan ay baratay diinta islaamka ay qaadatay markii safaaradda Talyaaniga la keenay dalkan iska bixi waxay inta qaylisay waxay tiri iska bixin maayo tani waa diintaydii waana ku farxay and I am proud of it waana ku faanaya muslimad baan ahay yani fiiri waxaan marka maanta aan soo qoray waxa la jawaa xilligii al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya ay heshiin lahaayeen oo wiilasheenii fiiri yaa ka dhex shaqeeyay mukhaabaraadka Turkiga walaaleen Turkiga khayr Allah siiyo sawirey dabcan inay ka qaataan ileen gabadha halkaas waxa ugu xiran suunkan iyo qalabka xabadka lagu xirto ee hubka maaragtay yani oo Turkigu iska leeyahay ciidamada militariga Turkigu ay leeyihiin iyo calaamadii Turkiga halka ugu xiran sawirey jawa tageenba yani sharafta Turkiga waa ka helay ilaahay ku idmaayo sharaf way ka heleen arab oo dhan baa yaaban xagee mareen Turkiga marka waxa weeye Turkiga al-shabaab iyo Soomaali waa ka dhex shaqeyn karaa al-shabaab dawladda Soomaaliya waa laga dhex shaqeyn karaa waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyaalka shabaab kooxda al-shabaab naxariistii ay haweenadaas u muujiyeen haweenadaas qaadatay diinta islaamka dhaqankii jeclaatay diintii jeclaatay wanaagii jeclaatay sidii ay adula dhaqanteen xornimadii aad siiseen guryaha ay tagi jirtay gabdhaha Soomaaliyeed ay baratay dhaqanka ay baratay diinta ay baratay luqada carabiga ay baratay quraanka sida loo qoro loo akhriyo ay baratay ilaahay idinka ajirsiyo gabadhi maanta waa muslimad diinteeda ku faanis xijaabkeeda ku faanis innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yani waxa la yaab gaaladii waxay leeyihiin yani 4 milyan wasiirka arrimaha gudaha hadlaya ee Talyaaniga 4 milyan oo dollar baan bixinay 4 milyan gabadhaan inaan soo furno Talyaaniga ee waxaan soo furnay baa leeyihiin Talyaaniga oo dhan ee naag muslimada markaas madaxiisa loo haystaa wardayna u dayna ficnad bay ku leeyihiin al-shabaabna lacag waa heleen waan dhirgeen gabarna maaragta dilay gudma waa soo bislinta alxamdulillah wala wada dhirgeen dilay gudma hadii la ilaahay go'ay gabar marka waxyaalaha kale ay ka dhawaajisay waxa kamid ah anu cilaaqa zawjiya ma jirto ciidan guursaday ma ay jirto waa dhici kartaa inay al-shabaab guursaday waa dhici kartaa possible oo u leedahay waa dhici kartaa sida gabdho badan ay sameeyeen waa dhici kartaa inay ku meersantahay waa dhici kartaa inaysan yani isfureen waa dhici kartaa Allahu a'lam waa gabar yar oo ma sha Allah يعني مركا دينلاند دير لا يراهdo maalmo dhaweed waxaan arkay nabad iyo nolol amaanaya shalay suu ahaa iyo maanta suu yahay soo sawireen shalay markuu dhurwaaga ahaa oo tibaha bulbusha iyo adula markuu iyo markii xogaa xabsiga la geeyay hotel baa la geeyay cunto cabitaan sharaab dhar qurux hadda gabadhii waxay soo baxday ayadoo qalanca qurux badan magac iyo sharaf ay soo horay u lahayn yeelatay oo dadka reer galbeedku xiraadiyaan magaca qofka in la barto oo caan adduunka ay ka noqotay oo luqadihii caalamka oo dhan ba gabadhaas looga sheekeeyay waxaana marka al-shabaab naxariista aad gabadha u muujiseen walaalihiina Soomaaliyeed shacabkiina Soomaaliyeed dawladdiina Soomaaliyeed madaxdiina Soomaaliyeed u muujiyeen islaamka ay qaadanayaan markaas Soomaali weyn islaamka ay qaadanaysaa markay arkaan wanaagiina markay arkaan runtiina markay arkaan cadaaladiina markay arkaan in aydan dhiiga xalaalaysanaynin dhiiga dadka muslimiinta in aydan xalaalaysanaynin markay arkaan in dhiiga qofka muslimka xaraam idin ka yahay markay arkaan dhiiga qofka muslimka iyo cirdigiisa sharaftiisa iyo maalkiisa ay xaraam idin ka tahay sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa zakada aad وابا لقرتي عن صورة حارانتا او دينتا اسلامك حارانتا كوا او اتقادان على الشباب ايضا الشعب الصومالي مكي اركان واحد حارانتا اتقاضي يسال الى تشوجسين ايضا والدين شعراريا فضلا حولاس حارانتا على تشوجيه او دينتا اسلامك وكو حاران الى نوحيدي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل حولينا دحدينا حارانها كعننا إلهي وحي مؤمنين تفري وحي رسول الله فري يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا رسول الله ان عمل في عنفلا وحلاش عنا مؤمنين إلهي وحي يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا حلاش عنا إلهي ورسول كانوا الشيء كوكا بقبين يا رجل أغبر أشعث أغبر نين بوريسن أو من أو رفاتسن ان قعميه سكوت التاغهي أو إلهي برياي ومطعمه حرام وحرية وحرام وملبسه حرام دركه ولا بسيه وحرام وغذي بالحرام حرام منقوتي يمد يديه الى السماء قعموه كرتوا يا رب يا رب اي ليهي
فأنا يستجاب له إلى سيلو أجيبه إلى ونوكر قال قول نسيبا نادين سيلا يقول لي سني حراني عنصر حران عرسنا الشباب اتقوا الله تبارك وتعالى نحريستا قبلنا ضمو جسري سمعنا هذا الشيء سيدو كلا أموتيا دلكينا أو تنازل دلكينا أو صبحة أو ولا يدين عفينا إياه أو لا يدين حيرن ما دولتنا وحنك عصرنا إنا يسميسوا هيئات جورية هديس السمين كرين أنا أو يستاقن فرصة بالله عليكم نوصي إنا أرنتا أو يستاقن أو علماء الصومال وصي هيئات جونية ولي لما الصمين هيئات حلال لما الصمين هيئات جونية دولة لا أديك السدى هيئات جونية أو كشق يسر هادين تاع الشباب صحرين تاع الشباب معارض كراديسة رقم معارض كراديسة ننكي مارتي يعني دلك الراديسة أحمد مدوبر راديسة داني الراديسة مسبح الراديسة ورنما يوفرني ككعة نما يوفرني ككعة حولها أنا أتسكى هلكا كل دين إنسان وأمتي كم بابضين ديبة أنا عيبينيني باطل يحاران إنكم الدفاع كرني حولها لا ينسوا ديبو أو ضد جارة لا ينكم قصوا ديبو قف أما قيس أما قبل أما الدقمة تاسو جاي